السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسر دوادا فاقداد برنامج كعيارها أو إنكو إيجينو كل ما دي دعاي مالنتي سبتي هيد يسيدو كلام مانتا واحد هيد كل ما دي دعاي شلي وسبتي هيد واحد دعاي إلا يتلو كل نوريات إنجليز خيال عياري كل كيو ريك واحد ما ينايتد أيها هلي إبر كقبل يسكو هذا كودا عكتا ساوثهامبتون كل كلي وحول لي نيكلي هذا فرنانديز عيارت مركي مريسي شن يكون دقيقة غيبت لبعض عيارتا ما ينايت أيها كلنكي لبعض حريرة بديسي مركي أي كفرة هريالكي إنجليز كجولدر حريرة لبعض كلنا هري ولا قبدي بس لبعض كلنا دميسي أي بديسي هريالك إنجليز نكسيدو كله وكوحة كله عياري وحكم لها إيفرتون إيا برينفورد أيها هلي هالبرجة كسورة ماضي برايتون أيها هلي إيفر كقبل يسكو حد ليدز يونايتد برايتون أيها يولي أمبيتنا سلاميدا سيدا كوحة أرسنال إيا مان سيتي إيا كوحة كله جلسي أيها تونين أيها كعياريسا وحي لبي هل كقبل يسكو حد ليستر سيتي جلسي كان بيدو هري وحا روسو كقاطع عياريان كليا كونر جالجا ayaa laba jaal qaatay muddo 6 daqiiqo gudaheeda 28 daqiiqo markii maray jaalis labaad ayuu qaatay ciyaartan uu ka baxay Chelsea ayaa saas ku badisay laba iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo dalaadacaysa xil ciyaareedkani walow ilaa hadda ciyaaryahan aysan la soo siixan kooxda Leicester City balse Chelsea ayaa ka soo qaadanaysa ciyaaryahanka lagu magacaabo Fofana oo daafaca kaga ciyaara walow ciyaartaasi ciyaartii ka horeysay labadaba aan kooxda lagu soo darin Chelsea ayaa daqiiqadii markii la isku soo noqday 2 daqiiqo kadib ciyaarta 47 daqiiqo markii mareysay gool heshay Sterling ayaa u dhaliyay 63 daqiiqo Sterling ayaa u labeeyay goolkiisa labaad dhaliyay labi eber ay ciyaarta mareysa 66 daqiiqo ciyaarta markii mareysay Ashley Barnes ayaa Leicester City hal gool soo celiyay walow ciyaarta ay ku dhamaatay labi hal ay Chelsea ku ugu sheegatay Chelsea ayaa tustay inay guuleysan karto iyadoo 10 kaliya ku ciyaaraysa sidoo kale kooxda Liverpool ayaa la dhihi karaa ciyaarta waxay ahayd basketball ciyaartay kooxda Liverpool ayaa 9 iyo waxba ku garaacday kooxda Bournemouth oo ayadana tigada dalaadacaysa kaliya kooxda Bournemouth waxay badisay kulan horyaalka ugu horeeyay gurigeeda ku ciyaaraysay kooxda Aston Villa kaga badisay saddexdii kulan ee ka dambeeyay Man City 4 Arsenal 3 u dhiibtay sidoo kale kooxda Liverpool ayaa shalay 9 gool ku qabatay goolka waxa dhaliyay Diaz sidoo kale goolka labaad waxa dhaliyay kaliya Elliot goolka saddexaad waxa dhaliyay Alexander Arnold saddexdaas gool buu caawin ka ahaa kaliya Firmino ayaa sidoo kale laba gool dhaliyay goolkii afraad wuxuu dhaliyay 31 daqiiqo ciyaarta markii la isku soo noqday ciyaarta intaysa dhamaan Van Dijk ayaa goolkii shanaad u dhaliyay kooxda shan eber ayaa kambi hore lagu kala maray sidoo kale ay gool ay iska dhaliyeen ciyaarta markii lagu soo noqday kambi dambe Nicolas Mefam ayaa gool iska dhaliyay Carvalho ayaa sidoo intuusan Carvalho gool dhalin Firmino ayaa labaystay goolka 62 daqiiqo markii mareysay Carvalho ayaa sidoo kale dhaliyay 8 daqiiqo ciyaarta markii mareysay Diaz ayaa ku soo qatimay maadaama uu furay isaga ayaa yiri anaa ku soo qatimay goolku dambeeyay 90 daqiiqo markii ciyaarta mareysay 85 daqiiqo ayuu dhaliyay Liverpool ayaa ku bururtay kooxda Bournemouth guulshii ugu horeysana gaartay xil ciyaareedkan walow laba kulan baraj ay gashay horyaalku bilaabatay kulankii saddexaadna Man United ay kaga badisay Old Trafford kulankan ay tiri waxa weeye ciilka aan qabay aan ku furo kooxda Bournemouth wayna ka badisay 9 waxba ciyaar hal dhinac ahayd kaliya si lamid ah kooxda wadacatay Man City ayaa laba gool lagu hormaray kambiyada hore labi eber lagu marsiyay markii la soo noqday qaybtii dambe ee ciyaarta Man City ayaa 4 gool kaga jawaabtay goolashaas hat-trick waxa la leeyahay ninka la celin lahaa ee yiraahdo Haaland ayaa hat-trick ka kacay oo u dhaliyay 3 gool kooxda kubadda cagta ee Manchester City balse goolka koowaad waxa dhaliyay Silva markii la soo noqday ciyaarta 57 daqiiqo markii mareysay Man City sanadkan waxay muuqataa inaan la qaban karin ilaa hadda Man City waxay barajiga shal kulan 3 kulan kamidana way badisay 10 dhibcood ay leedahay wayna arki doonaa kala horeynta horyaalka ee Arsenal ayaa kulanka ugu dambeeyay maalin Sabtida ciyaartay saacada 7 barka Geeska Afrika markay ahayd goolka Arsenal laga hormaray 55 daqiiqo markii mareysay ay Arsenal ku baday oo isku dhadhajiyay ninka la yiraahdo Gabriel Magalhaes waxa ka qaatay ninka la yiraahdo Mitrovic kaasoo goolkiiba hadaba mariyay hal eber ciyaarta dhigay 56 daqiiqo markii mareysay labaad ciyaarta walow qaybtii hore ku soo dhamaatay eber Arsenal ayaa goolka la timid barajada 10 daqiiqo aan 8 daqiiqo kadib Martin Odegaard ayaa kubadda deflection ahead ama ciyaartii ciyaaryahan kale ku sii dhacday u dhaliyay kooxda kubadda cagta Arsenal markii Bruno kale dishtaafkiisa hore sidoo kale ninkii qaladka sameeyay Lira Gabriel Magalhaes ayaa 85 daqiiqo Bruno corner oo isku dhacay kubadda ku soo dhacday ka bacdina laaday goolkana saa ku dhaliyay Arsenal ayaa laba hal ku badisay Arsenal ayaa ilaa hadda waxay wada rikoorka 100% 4 kulan ciyaarta 4 kulan way badisay kulamada maanta dhacay inuu eegno kooxda Aston Villa ayaa hal eber lagu bidayay gurigeeda kooxda West Ham kaga badisay West Ham ayaa guusha ugu horeysay gaartay
sidoo kale Wolves ayaa bareejo hal iyo hal la gashay kooxda kubadda cagta Newcastle walow Wolves ay gool kala hormartay ka qaybta hore ciyaarta 90 daqiiqo ciyaarta markii mareysay ay Newcastle bareejaysay ciyaartaas ayaa kusoo gabagabowday hal iyo hal sidoo kale kooxda Nottingham Forest ayaa laba eber looga badiyay waxaana kaga badisay kooxda Tottenham kulan mar dhow soo gabagaboway Tottenham ayaa ku badisay 2 eber labada goolna wuxuu dhaliyay Harry Kane 5 daqiiqo markii mareysay iyo 81 daqiiqo markii mareysay kooxda Tottenham ayaa kamid ah kooxaha ilaa hadda aan laga badin bal haddaynu eegno kala horeynta horyaalka Ingiriiska 4 kulan kadib oo la ciyaaray naadi kasta waxay ciyaartay 4 kulan Arsenal ayaa kaalinta koowaad ku jirta iyadoo 4 kulan ay badisay afartii kulan ciyaartay 4 kulan badisay sidoo kale wax barbardhac maysan galin waxa lagama badin 11 gool ay dhalay 3 gool ayaa laga dhaliyay waxay leedahay 12 dhibcood Man City ayaa 10 dhibcood oo kaalinta labaad ku jirta iyadoo leh 10 dhibcood sidoo kale Tottenham ayaa 10 dhibcood leh Brighton ayaa sidoo kale 10 dhibcood leh waa naadiyada ilaa hadda aan laga badin horyaalka Ingiriiska waxa kale oo kamid ah Newcastle ayaa sidoo kale laga badin kaliya horyaalka Ingiriiska waxaan laga badin Newcastle Brighton Tottenham Man City Arsenal waa shanta naadi ilaa hadda horyaalka dhinacooda dhulka lama dhigin balse Arsenal ayaa rikoorka 100% haysata yaa hooseeya horyaalka marka intaan hoos aanu gelin waa inuu fiirina kooxda Chelsea ayaa lixaad ku jirta 7 dhibcood leh sidoo kale shalayna badisay sidoo kale kooxda Man United ayaa soo gashay kaalinta 8aad ka soo kacday kaalintii 20aad ay ku jirtay labadii kulan ka hor iyadoo 6 dhibcood leh Liverpool ayaa soo celisanaysa kaalinta 9aad oo Man United gadaal fadhisa oo 5 dhibcood leh iyadoo laba kulan barbardhac gashay kulan badisay kulan laga badiyay horyaalka kaalmaha ugu hooseeya Leicester City ayaa ilaa hadda wax guul gaarin hal bareejo kaliya ay haysataa Wolves ayaa sidoo kale 2 dhibcood haysata laba kulan ay bareejo gashay laba kulan laga badiyay Everton ayaa sidoo kale laba kulan barbardhac gashay laba kulan laga badiyay kooxaha ugu hooseeya waa saddexda koox Everton Wolves iyo Leicester City barnaamijkii ciyaaraha aan ku eegaynay kulamadii dhacay isbuucan waxa loo yaqaano kulankii afraad ee horyaalka Ingiriiska la ciyaaro kooxaha ay ciyaaraan maanta Sabtida ahayd iyo maanta Axad ahayd waa naga intaa fadlan hadda channelka cusub tahay subscribe saar sidoo kale like saar videoga si asxaab fara badan u gaaro waad ku maasan tahay daawashada muuqaalka aad daawanaysid